السلام عليكم أحبابي من الباجوكتان وادي سلامة كسر دوالة جنال كيجا دكتورة سجيا فضلا تيادكم عصبتها جنال كيجا سبسكراب إيسار مقال كان إلا كري ونشي شركري قار كمال أصحاب هذا هدي هورين الجوكتينا مقال كلا كري سين شركري وادكم عصن تحي waxaan rabaa inaan idin la wadaago afar faa'iido oo laga helo malabka iyo liidanaanta oo la isku daray hadaba waxa ka mid ah faa'iidooyinkaasi koow ka taqluusida buurnaanta caylaanta ay ka taqluustaan marka la isku qaso malabka iyo liidanaanta labo ka nadiifinta sumaha jirka ku jira saddex ka qayb qaadashada kaadida sifooyinka ama asaasiga ay u leeyihiin malabka iyo liidanaanta dhamaan la isku qasay ama la isku daro labadoodaba ay waxay dardargelisaa ama ay ku caawisaa kaliyaha kana caawinaysaa in ay si qumaati ah u shaqeyso ama ay ugu nadiifiso waxyaabaha sumaysan ee ku jira afar malabka waa il dabiici ah jirka wuxuu u baahan yahay sokor malabkana wuxuu wataa sokor dabiici ah una fiican jirka waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkani haddii aad gaashay muuqaalka la kareysii la sheer karay